Taj Mahal qasriga boqortooyooyinka waa madxaf ka samaysan dhagax cad oo aad u adag kuna yaala dhanka koonfureed ee webiga Yamuna ee magaalada Agra ee dalkaasi Hindiya. Waxaa dhisay boqorkii lagu magacaabi jiray Shah Jahan oo xukumi jiray boqortooyadii Mughal Empire qarnigii 16aad. waxaana ka qayb qaatay dhismaha qasrigani in ka badan 22,000 oo shaqaale ah kuwaasi oo hoos iman jiray boqorka. waxaana jooga sare ee dhismaha uu gaaraya ilaa 50 mitir, sidoo kalena waxa uu leeyahay 4 minaaradood oo dhirirkooda uu gaaraya 137. waxaa ku yaala jardiinooyin gaaraya ilaa 300 oo mitir. dhismahan waxa uu boqorkii dhisay u hiibeeyay xaaskiisii Mumtaz Mahal oo geeriyootay iyadoo foolanaysa cunugeedii 14aad ee lagu magacaabi jiray Guhara Begum. waxa uuna u dhisay inuu ku soo xusuusto xaaskiisa oo la rumaysan yahay inuu aad uga murgooday warka geerideeda, iyadoo qabriga xaaskiisana laga dhex sameeyay gudaha Taj Mahal. waxaa xusid mudan in dhismaha Taj Mahal uu ku dhex yaalo qabrigii isla boqorkii dhisay, waxaana ilaa maanta taga kumanaan lamaana ah oo daafaha adduunyada kaga yimaada sidii ay dhismahaasi taariikhiga ah mar u soo arki lahaayeen. waxaa la sheegaa in boqorka Shah uu isaga oo nool ka dardaarmay in qabrigiisa laga dhex dhiso halkaasi. waxaa dhismaha Taj Mahal si rasmi ah loo bilaabay sanadu markay ahayd 1631, waxaana la soo gabagabeeyay sida ay taariikhyahanadu sheegayaan sanadka markuu ahaa 1643, halka gidaarka ku wareegsan dhismahaasi Taj Mahal la soo gabagabeeyay 5 sanadood kadib markii dhismaha la dhameeyay. dhismaha Taj Mahal waxaa ku dhex yaala qabriga boqorka, xaaskiisa iyo sidoo kale dad ka mid ah madaxdii isaga la shaqaynaysay. waxyaabaha cajaa'ibka ah ee ku yaala qasrigani uu dhisay boqorkaasi waxaa ka mid ah in uu leeyahay qolo lagu soo dhaweeyo martida iyo sidoo kale dadka caanka ahaa ee soo booqan jiray boqortooyadiisa. sidoo kalena waxaa ku yaala masjid aad u baaxad weyn oo boqorkaasi Shah oo isagu ahaa nin muslim ah uu ka dhex dhisay. waxa ay ka mid tahay Taj Mahal waxyaabaha taariikhiga ah ee muslimiintii hore ay ka tageen. 3 meelood meel dadka adduunyada ku nool waxaa la sheegaa in ay garanayaan dhismaha jacaylka ee Taj Mahal oo ugu yaraan ay maqleen haddii aysan booqan. waana meel ka mid ah meelaha loogu dalxiiska badan yahay taariikhda. waxaa sanadkii u dalxiiso sida ay sheegaan 7 milyan ilaa 8 milyan oo ruux oo isaga kala yimaada daafaha caalamka. inta la og yahay dadka caanka ah ee u dalxiisay dhismahaasi waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Bill Clinton iyo xaaskiisa Hillary Clinton. sidoo kaleete waxaa booqday oo halkaasi si lama filaan ah ku tagay madaxweynaha dalka Ruushka oo lagu yaqaan nin adag Vladimir Putin, iyadoo sidaasi oo kaleete jilaaga caanka ah ee reer Mareykan Tom Cruise uu isagana booqday. walow dad fara badan ay booqdeen, haddana weli dadka caalamka jooga waxa ay u indhataagayaan in mar ay indhaha ka soo qaadaan dhismahaasi jacaylka ee taariikhiga ah. dhismahan Taj Mahal ayaa waxaa la sheegaa in dhammaan albaabadiisa ay ka samaysan yihiin qalin, waxaana xusid mudan in ay ku hardhan yihiin qaar ka mid ah aayadaha Qur'aanka Kariimka ah. markii aad gudaha u gasho albaabada qaar waxaa ku muuqanaya barxad aad u qurux badan oo uu boqorka halkaasi ka dhisay. sidaan hore u soo sheegnay, dhismaha waxaa ku dhex yaala masaajid uu boqorku ugu talagalay inay ku tukadaan dhammaan dadka imaanaya boqortooyadiisa oo ay ka mid ahaayeen dadka madaxda ah oo ugu kala imaanayay daafaha caalamka muslimiinta ah. masjidkan ayaa waxaa la sheegay in boqorka si qaas ah oo ugu xushay dad injineero ah oo ugu talagalay in si qaab naqshadaysan oo weliba aad u qurux badan ay ugu dhisaan masaajidka, iyadoo xusid mudan tahay dhammaan albaabada masaajidka in ay yihiin kuwa ugu quruxda badan ee Taj Mahal. waxaa gudaha masaajidka ku hardhan aayadaha Qur'aanka iyo magaca Alle subxaanahu wa tacaala. dhanka kale, dowladda Hindiya oo dadaalo fara badan ku bixisay in ay sii dayactirto dhismahaasi, walow uu dhismaha naftirkiisa u baahneen dayactir, ayaa waxaa la sheegay in jardiinooyinka halkaasi ku yaala maalinba maalinka kasii dambaysa lasii naqshadeeyo si ay indhaha caalamka u soo eegaan. 100 milyan oo dollarka Mareykanka ahna looga soo xareeyo. waxaa la sheegaa dakhliga ka soo gala dowladda Hindiya halkaasi in uu ka mid yahay dakhliyada ay ku xisaabtantay ee sanadlaha ah. dhismaha Taj Mahal ilaa maanta la joogo dadka booqanaya waxa ay u badan yihiin lamaane weliba ku soo xasuusanaya jacaylkii boqor Shah oo ahaa ninka kaliya ee xilligaasi la joogay u dhisay xaaskiisa qasri uu iyada ugu magac daray. sida aad ka dheehanaysa magaca Taj Mahal, xaaska boqorkaasi magaceeda oo ahaa Mumtaz Mahal ayaa loogu magac daray
sidoo kaleete dhismaha waxa uu ka mid yahay meelaha ugu wanaagsan ee laga booqdo dalka Hindiya isagoo ku ag yaala webi aad u qurux badan iyo sidoo kaleete jardiinooyin loogu talagalay in lagu raaxaysto oo ay weliba indhaha sii milicsanayaan. daawadayaal intaa waxaynu ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennii gaabnaa ee aynu uga hadlaynay guriga jacaylka ee Taj Mahal. tani intaynu ku kulmayno barnaamijkan kiisa kale waa anigoo inkaga tagaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.